ku soo dhawow janalka galgalan news taabo calaamada guduudan ee subscribe kadibna ku dhufo gambaleerka si aad u heshid mar walba barnaamijyada iyo wararka aanu soo gelino galgalan news. bismillaahir rahmaanir rahiim. sidaad u jeedaan ba xalfadan quruxda badan oo caawa dadka halkan iskugu yimid haddaan hordhaceeda bilaabo caawa xalfadan waxay ku saabsan tahay oynu ku soo dhaweynaynaa oon ku sagootineynaa oon ugu duceyneynaa saaxiibkeen oo loo doortay gudoomiyaha jaaliyadda magaalada Kismaayo oo magaciisa la dhaho Khadar Maxamed Warsame. ninkan hadda halkan aan oga yeeri doono waa nin aqoon-yahan ah, howlkar ah, waxqabad badan, lawyer u ah ummadda Soomaaliyeed ee dalka South Africa. ninkaas kuma celcelin karo aad waa comrade-kayaga waxa weeye Maxamed Axmed Suuriye oo ku magac dheer reer South Africa dhammaan ay u yaqaanaan Master Mash. ninkii gudoomiye maanta laga dhigi lahaa mudnaa nin dhalinyaro ah firfircoon waqti hore laakiin isugu keen dambeysay muddana isnaqaano saaxiibkay Khadar waa u hambalyeynaya waxaan leeyahay ma ahan kaliya sidoo ninka ka dhawaajiyay Minnesota waxaan is leeyahay Northern America iyo inta dhaxda ku soo jirto rag badan waxa oga reer South Africa oo dhaxda ku soo jira Rex Maayo oo dhaxda ku soo jira soo socdo inta inuu gudoomiye yahay aan aaminsanahay aad baan ugu faraxsanahay xoogaa waxaan islahaa dadka hore markay hadlaan ku dhex dhuumatid laakiin nin saaxiibkay afar qof oo feego horteeda ku qoray waana gaaday marka hadal badan iguma jiro nin martigaan ahay waxaan islahaa dadka magaalada jooga xoogaa bal aad kala qabsatid magacayga soo sheegay Maxamed Axmed Suuriye waqti hore laakiin magaaladii ugu dambeysay Kismaayo laakiin waxay dhahaan magaalada macnaha anaga ka soo tagnay laakiin ayada naga may soo tagin we left Kismaayo but Kismaayo is still in our heart. marka caawa farxad bay ii tahay xaqiiqdii dad halgamaa ah oo u soo halgamay oo halyeeye ah oo wada comrade inay halkan ka soo qayb galaan xalfad aadan u qiimaha badan oo maasha Allah aan ugu caleema saarayno saaxiibkeena. waxaan haddana mar kale u yeerayaa hadalka ku sii dheeraan maaye saaxiibkay comrade Bashir Maxamed Maxamuud ku magac dheer Ainshe. waxaan leeyahay oo aan rabaa kulleeba juhdi iyo dadaal baa soo gashay in xilkaani aad ku hanantid. waxaan rabaa inaan kula dardaarmo aan u sheego inuu yacni qaas ahaan saaxiibkay uu ka shaqeeyo asaga iyo guddigiisa uu soo doortay qaabku isugu xiri lahaa dhalinyarada reer Kismaayo asoona kala qaadeenin nin jecleysi iyo aqoon ama shakhsiyaad gaar ah uu fiirinaynin inuu ka shaqeeyo qaabku isugu keen lahaa dhalinyarada reer Kismaayo qaas ahaan iyo dhammaan dhalinta reer Jubbaland ee isku ekaanin dhalinyarada reer Kismaayo. hamigeena iyo ujeedadeena insha Allah inuu noqdo inaan isku keenno dhalinyarada Soomaaliyeed oo hadallada ay ku hadashay xaqiiqdii aan dhahay madaba martay oo magaalada dhinac ma ka soo dhisata adigana waa Adar Samatar ee ila soo dhaweeyay. caawa waxa iskugu imaanay wiilkan walaalkeen oo dhalinyarada ah xafladiisa sagootintii iyo caleema saarki labadaba Qadar waxa waaye maasha Allah waa wiil firfircoon waa wiil oo maasha Allah oo karti leh marka intiinaan kalena ama intana daawanaysa ama inta maxaan ku raadaan dhageysanayso waxaan jecelnahay in macnaha la support gareeyo lala dadaalo annagana maasha insha Allah garabkiisaan taaganahay hambalyaan leenahay hawshan lagu doortay Ilaahay kula garab galo Ilaahay kula guul hakulu geeyo maxaa Allah annagana waxa waaye inta xaflada ka soo qayb gashay aada u mahadsantihiin. marnaba meesha waxaan ka marnayn inaan haddana u mahad celino saaxiibkeena Deeq Daraja oon u magaciisa dhameystiri doona Deeq Maxamed Muuse Nuur kana caawa macnaha noo suurta geliya xalfadan aadka u qiimaha badan inay noo qabsoonto. xogmaal media waa online ayadana ma aragtaa waad noo share gareyn kartaan. waxaa haddana nagu soo kordhay mustaqbalka mayorka magaalada Cabdiweli oo hadda nala joogo. Cabdiweli baan ku soo dhaweynaynaa hal mar u saacabiya. anigu ka Cabdiweli ahaan gudoomiyaha guud ee jaaliyadda Jubbaland North America
وأنا رأسنا وأنا تاجر سنة قدومية حاشا لله وأنا على مساركي سنة وهبي وأنا كنا هي اللي هو اللي قرب تاجرنا قدر محور سمه وأنا نقلما وأنا نقولها أنا ودنا يرى رجل يدك قبلها شرفت له صوت دورتين وضد أقلما إنه هو جاميان دنا يرى دريركس مايو مركا كعبد ولا أهان كجاليد أهان نورد أمريكا جاليد جود وقرب تاجرنا هي اللي هو لبا الدورة بإذن شاء الله الدولة جبلان وجود بني أقول مدحونا أحمد محمد سلام هي مدحونا كحجينا دي سبب دو إلى إنه مركز حاجة تكتنا إلى بورك ولا جوسو دونا وأنا لو كل مسا الدولة ده إلى إذنك إن شاء الله إن هذا كوي كان كعد سنة مقالة نيروبي إن تجودا وقشوا سيدو كلا وحن كعد سنة يا دلنا يرد جبلان إن قدر كل جيس وحنا قبل كره إن قرب لصيه الله يليه waxaan u yeerayaa haddana axmed shariif bulle oo ah asagana lafdhabar dhallinyarada magaalada kismaayo u soo shaqeeyey u hiilan waxaan halkan uga hambaleynayaa walaalkii qadar maxamed warsame oo aan u dooranay gudoomiyaha dhallinyarada ee magaalada kismaayo hambali aan leeyahay marna waa saaxiibkay marna waa walaalkay in badan aanay asaga isla cunteynay waa nin aqoon-yahan ah waxyaalo badan aan uga fadhin inuu qabto insha allah waxa qabashada aan rabno waxay tahay inaan noqono hormuud magaalada Kismaayo wax ku soo kordhiya dadka reer Kismaayo dibadaha wada soo baxeen weli lama helin gudi dhalinyaro ah oo magaalada Kismaayo waxtar gaarsiiya waxaan jeclaan lahaa insha allah inaan noqono gudiga dhalinyarada ugu horeysay magaalada Kismaayo barnaamij ka fuliyo barnaamijkaas oo ah horumarinta degmada Kismaayo okay haddana waxaan u yeerayaa khaliif qaasim cabdullaahi cawada waxaan u hambaleynayaa gudoomiyaha dhalinyarada magaalada Kismaayo cabdi qadar maxamed warsame waxaan leeyahay howl weyn ayaad qaaday howshaas waxaa laga filayaa insha allah inaad ku guuleysato hadduu alla yiraahdo aad isku wado dhalinyarada meel kastoo joogaan kulley waxa lagu doortay waxaan filayaa inay tahay karti iyo sharaf iyo cizo aad leedahay annagana waxaan leenahay haddaan nahay dhalinyarada ee magaalada Kismaayo guul waxaa kaloo jirta in muddo waxaa jirtay dhalinyarada Kismaayo inay ayna iska warhaynin laakiin hadda waxaad moodaa in la is aruurinaya insha allah mar kale waxaan u yeerayaa isagana nin dhalinyaro reer Kismaayood ah cabdisaaq xasan faarax ku soo dhawow adigana gudoomiyaha la doortay ee Kismaayo qadar maxamed warsame inuu ilaahay la garab galo markuu dalkii ku laabtana inuu ma aragtay isku dayso dadka u mideen lahaay in dhammaan dadka inta joogana dhalinyarada reer Kismaayo in la midooba qabyaalada iyo qurunka wax walba intii la iska daay ma aragtay hal qof la noqda baan ilaahay ka baryaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa ma aragtay wadankii inuu nabad nooga dhiga magaalada Kismaayo waa magaalo bad leh woobi waa magaalo ma aragtay qani ah waxaana la qiyaasay ilaa 250 inay ku nooshahay ilaa 250 kun oo qof marka magaaladaas oo kale waxaa la rabay 2 milyan 3 milyan oo qof oo looga tiragalay woobigeeda iyo badeeda iyo marka horta ilaahay ha noo barakeeyo waxaa leeyahay walaalkay qadar maasha allah dadkii iga weynaaya hadla maasha allah wax walba oo la dhihi lahay dheheen so anigana waxaa leeyahay maasha allah xilka ilaahay hala garab galo ilaahay nabad muxuu ahaa isha ka ku geeyo Jubbaland iyo Kismaayo iyo meelihiis kale u socday insha allah bidnillah xilkana qadar kaligiisa yaa lagu sii daynin waa in nin walba oo Kismaayo ka soo jeedo oo la garab galaa oo karaankiisa wixii uu la istaagaa so maxaa leeyahay maasha allah annagana waa garab taaganahay heel iyo hawba la garab taaganahay walaalkeena qadar insha allah bidnillah assalaamu calaykum waxaan haddana mar kale u yeerayaa saaxiibkay ama comrade jamaal kadiye oo asagana noogu soo dhaweyn doono insha allah gudoomiyaha si uu xalfadan ma aragtaa uu asagana qodobadiisa hal doorka uu nasiin doono jaamac
jamaal igu soo dhaweeya dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladda oo u mahadcelinayaa caawa waxaa meeshan isugu imaanay walaalkeen qadar doorashadiisa run ahaantii qadar wuxuu kusoo baxay cod reer Kismaayo ayaa doortay waxaa lagu doortay waxqabadkiisa kartidiisa iyo inuu yahay nin samata bixin karo reer Kismaayo una adeegi karo jaaliyadiisa reer Kismaayo marka qadar waxaan ku leeyahay kusoo dhawow sida lagu doortay kusoo dhawow waxaana ka filaynaa insha Allah inaad wax u qabato dadkaaga waan kusoo dhaweynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo anagana waa kula shaqeyn doonaa haddaan nahay reer Kismaayo mar walbana waxa u taagnayn inaan reer Kismaayo aan dadkeena u shaqeyno maamulkeena waxaan ogeysiinaynaa inaan maamul sameysanay inaan hoggaan yeelanay oo qadar uu hogaamin doono hadduu Ilaahay yiraahdo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaamayaa dhammaan dhaqayaarta ka soo qayb gashay xalfadan caawo rag iyo dumarba waa salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa deeq dirjo oo waqtigiisa na siiyay aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waxaa kaloo u mahadcelinayaa Saleewaan ninka programka dhan isku dawridayay xiriiriyaha guud asna aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo salaamayaa walaalkii maash oo nooga imaad state kale caaw asagana noola joogo rag badan state kale ka imaad iyagana waa salaamayaa aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waqtigooda waxaan kaloo salaamayaa Cabdiwali Axmed Warsame mustaqbalka maayar Kismaayo waa ii jooga marka waxaan rabaa inaan idin la wadaago maadaama aan dhalinyarada Kismaayood waxaan anaga horta ururkan iyo dhalinyaranimadan iskugu imaanay waxa waaye inaan wax qabsano aan ka fogaano qabiilka aan istaageerno anaga dhamaanteen meel walba oo reer Kismaayood ay joogaan kuwa gudaha joogo iyo kuwa Yurub Canada meel walba inaan isku xirnaano oo magaaladeena waxa u qabano haday noqoto inaan wax tarno haday noqoto inaan waxbarasho aan ku caawin kan dadka masaakiinta waxbarashada aan haysanin dadka waxba aan haysan waxa kamid ah dadka waxbarashada aan haysanin dadka oo service-ka aan gaarin dawladeena way mahadsan tahay Jubbaland waxay ku mashquulsan tahay howlaheeda kala ka tan badan marka shacabkii dad waxa waaye service badan aan haysanin markaan fiirinay that's why anaga dhamaanteen aan ururkan iskugu imaanay oon rabnaa inaan walaalaheena caawino reer Kismaayood iyo nawaaxigeeda marka dawladda culeyskan ma saari karno anaga waxaan go'aansanay inaan wax iska aruurino oon dadka shacabka baahan service-ka u baahan yihiin oon la wadaagno oon dhahno maxay u baahan yihiin waxyaalaha ugu soo horeeya maxaa aan ka qaban karno magaalada si aan u gaarsiino marka waa ka wada tashanay anagoo badan waa soo dhaweynay waa isku taageernay walaalaheena kala fikirka waa la wadaagnay waa nagu taageereen hadda waxyaalahan hor yaalo waxa waaye hadduu Ilaahay yaraado magaalada Kismaayo inaan ka qabano ramadaanka nagu soo fool leh ramadaanka inaan dad badan insha Allah afurino Soomaalida waxay dhahdaa waxna tusi waxa qabateen si aan ugu aamin marka hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan qabano waan soo bandhigi doonaa waana tusineynaa waa la wadaagi doonaa dadka wax nagu taageera inay wax bixiyaan insha Allah wixii laga qaado ama waxa bixisiin waa arki doontiin meesha martay iyo waxa ku bixiseenbo hadduu Ilaahay yiraahdo anigana safar ay ugu jiro walaalahayga sida sharafta leh oo caawa igu hambaliyay xilkan la dhiibay insha Allah sida wanaagsan ay ugu taageereen waxaana ka rajeynayaa sida ay ugu taageereen ay ugu garab istaagaan ay labadan hoosha marka hadduu Ilaahay hoosha way badan tahay arrimaha uu badan yahay maraw inaan ka hor dhaco hore u yiraahday waxaan rabaa wax walbo aan qabano marka aan soo bandhigno aan diin ku aragtiin ayaa nagu qiimeynaysiin wax qabadkeena marka insha Allah waa amaasantihiin dhamaan waxaan kaloo salaamayaa aan ku qatimayaa maamulka Jubbaland madaxweynaheena Axmed Islaam waa salaamayaa oo gudoomiye madaxweyne ku-xigeenyaasha ciidamada qalabka sida amniga dhamaan waa salaamayaa hoosha awdiin waa hool adag Ilaahay ani fududay magaalada saarkiisiin oo Kismaayo dadka nabadda ka dhigaatihiin lagu seexdo lagu soo kaco aadaan iiga mahad celineynaa